بسم الله الرحمن الرحيم وحمانت كلمي قدقي سياحيها رئيس الوزراء مقعاوي إنه بارتان كسميو دعدي حبسي كدعدي maalintii 10 bisha 8 2020 guddiga waxay ogaadeen in maalintii 8 bisha 8 xabsiga dhexe la soo geliyay hubkaas oo ku jiray alaab loo keenay dadka xabsiga ku jiray waxaa kale guddigu u caddaatay in maalintii 10 bisha loo keenay maxaabiistii meeshii ku jirtay oo damacsanaa in dhibaatooyin ay ka sameeyaan xabsiga rasaas dheeri ah loo keenay hubkan waxaa lagu soo qariyey mar jawaan liin ah marna waxaa lagu soo qariyey hilib hubkaas markuu gaadhay maxaabiistaas oo u diyaar garooway in dhibaato meesha ay ka ridaan waxay u suurto gashay in ay dagaalka ay bilaawaan maalintii 10 bisha 8 halkaas oo ay ku isticmaaleen bustoola iyo bambooyin maxbuuskii ugu horeeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen masme ahe ay sameeyeen dayacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan kuwaas oo hadda si fiican loo baaray waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo waxaa xabsiga dhexe qofkii marka mas-uul ka ahaa taliyihii xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo waxaa kale falkan loo qabtay 6 qof oo ayagana muwaadiniin ahaa civilian kuwaas oo ayagana la aaminsan yahay inay fududeeyeen oo qeyb ka qaateen kuwaas oo ayagana lahaayo baaritaan ku socda waxaa sidoo kale lahaaya 9 qof oo maxaabiista ka mid ah oo qeyb weyn ka qaatay falkan hadda waxaa gacanta ku haaya baaritaankiisa guddiga markuu soo dhammaystiray baaritaankiisa waxaa loo gudbiyey xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida maadaama dadkan ciidan ay u badnaayeen dadka kale caawina ay ahaayeen dad argagixisada la shaqaynayay waxaa wasaaradda cadaaladda ka horgashay in dib u howlgeliso shuruucda xabsiyada dalka sharci number 7 oo soo baxay 30 bisha 12 1971 iyo habraaca xabsiyada dalka habraacaas oo nambarkiisu yahay 49 oo soo baxay bisha 9 taariikh 9 bisha 8 1984 habraacaas waxaa lagu faahfaahiyey waxyaabaha laga mamnuucay xabsiyada dalka iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto waxaa loo baahan yahay in tababaro khaas ah la siiyo ciidamada usluubta wacyigelin guudna la siiyo maxaabiista ku jirto waxaan faray ciidamada usluubta iyo taliyaashaba in habraacaas
iyo shuruucdaas la howlgeliyey ay u hoggaansamaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in lasoo gebagabeeyey dadna loo haayo dhacdadii xanuunka badneed oo xabsiga dhexa ka dhacday. waxaan aad iyo aad ugu xunnahay intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantay. waxaan leenahay intii ku dhimatay oo ciidamada usluubta ka mid ah oo dagaalkaas ka qayb qaadatay oo halgamiyaasha ah, waxaan leenahay ilaahay jannada ka waraabiyo. kuwa faldambiyeedka ku kacaya ummaddana ma aragtay u horseedayo dhibaato, waxaan leenahay ayagana ciqaabtooda way heli doonaan.